magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta waxaa si rasmi ah uga furmaya maalinta Salaasada ee toddobaadkan oo ku beegan 30 bisha September shirka The Africa Debate oo ah madal muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo wadamada Afrika. Shirkan oo qabsoomaya kalkiisii labaad waxaa laga wadaa inuu isu keeno madax sare oo ka kala socota wadamada Afrika iyo Imaaraadka Carabta, hay'adaha maalgashiga, bangiyada iyo shirkado gaar ah oo danaynaya fursadaha ballaaran ee ku jira maalgashigan istiraatiijiga ah ee u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Afrika. socdo shirkan waxaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhaqaale iyo maalgashiga labada dhinac. Si gaar ah waxaa looga hadli doonaa tamarta cagaaran, kaabayaasha dhaqaalaha, hal-abuurka dhijitaalka ah, sugnaanshaha cuntada iyo doorka isbeddelka cimilada, iyadoo uu shirkani kusoo beegmayo u diyaargarowga shirka isbeddelka cimilada adduunka ee COP30 oo ka qabsoomaya dalka Brazil. Ujeedka guud ee shirka ayaa ah in laga gudbo doodaha guud laguna bedelo heshiisyo dhaba, mashaariico waaweyn iyo iskaashi muuqda oo la taaban karo, iyadoo la eegayo meelaha ee Afrika iyo Imaaraadku si wada jira uga madaxda Afrika ee shirkan ka qayb galaysa waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceer oo shirkan khudbad ka jeedin doona, arrintaas oo muujinaysa sida caalamka u danaynayo Somaliland iyo si gaar ah heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka soo jireenka ee u dhexeeya Somaliland iyo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, iyadoo noqonayo shirkii labaad ee heerkiisu sarreeyo ee dowladda Imaaraadka Carabtu ay ku marti qaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Sidoo kale ka qaybgalka shirkan ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa cadeynaya kaalinta ay Somaliland kaga jirto qaaradda Afrika, iyadoo ka mid ah wadamada Afrika ee leh fursado maalgashi oo la isku halayn karo kuna taala goob istiraatiiji ah oo muhiim u ah maraakiibta ganacsiga iyo soo socodka caalamiga. Hore dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maalgashiga ugu ballaarnaa ka fulisay Somaliland, iyadoo shirkadda DP World ay Somaliland la gashay heshiiska ballaarinta iyo casriyeynta dekedda Berbera, taasoo qayb ka ah qorshaha istiraatiijiga ee labada dhinac. Khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu ka jeedin doono shirka ayuu ku soo qaadi doonaa fursadaha maalgashi ee yaal Somaliland, guulaha ay gaadhay 30 sannadood ee ugu dambeeyay, xaq ay u leedahay in la aqoonsado iyo sida ay u tahay dal mas'uul ah oo u qalma in la shaqeeyo lana maalgashado. Cabdicasiis Ciidid Cilmi, warbaahinta qaranka.